shirka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya maanta magaalada Muqdisho ku yeeshan oo nashir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay warbixin laga dhageystay xubnihii wasiirada ahaa ee loo xilsaaray xalinta dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose iyo adkeynta ammaanka dalka guud ahaan. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo shirka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sharaxayaa arrimihii ugu waaweynaa ee lagu soo qaaday kulanka xubnaha golaha wasiirada ee maanta. golaha wasiirada waxay ahayd warbixin dabcan laga dhageystay wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo kamid ah wafdi 3 wasiir ah oo tagay gobolka Shabeellaha Hoose oo uu hogaaminaya wasiirka garsoorka Soomaaliya mudane Cabdilaahi Abiy Nuur. waxa ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee deegaanka waxyaabihii dhacay ayaana guud ahaan laga wareystay bulshada iyo qaybaha kala duwan ee waxgaradka ee gobolkaasi ku nool. waxaad moodaa in run ahaantii si weyn dadka deegaanka iyo xubnaha golaha wasiirada ee halkaasi tagayba ay isla garteen wada shaqayn buuxda inay dawladda ay la sameyn doonaan iyo in dadka deegaanku ay waxyaabihii dhacay dabcan ka gudbi doonaan oo dhibaatooyinkaasi ay noqonayaan kuwo xalkooda sida ugu dhaqsiyaha badan wax weyn looga qaban doono. waxaa aad iyo aad runtii u muuqanaysay in nabadgelyada ciidanka iyo wada shaqaynta dadka deegaanka iyo ciidamadu ay tahay arrin ahmiyad leh iyo in nabadda iyo wada hadalladu ay noqdaan mar kastaba kuwa ahmiyadda gaarka ay siinayso dawladdu. dadaalka noocan oo kale ahna dawladdu waa ay sii wadi doontaa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo qiimeyn guudna hadduu ilaahay idmo arrintaasi dawladdu dadaal aad iyo aad u fara badan ayay ku bixin doontaa. sidoo kale xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay tacsiyo u direen madaxda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti ayagoon ugu tacsiyeeyay askariga ka tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Jabuuti ee ku geeriyooday qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida uu mar kale sharaxayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhinaca kale golaha wasiiradu waxa ay runtii si wada jir ah tacsi ugu direen dhammaanba dadkii dhibaatooyinku ay ka soo gaareen weerarkii ka dhacay magaalada Beledweyne oo ay ku jiraan ciidamada Soomaaliyeed ama ciidamada Soomaaliyeed. waxa kaloo ay dabcan uga tacsiyeeyeen dawladda dalka Jabuuti in mid kamid ah askarteeda halkaasi oo ku dhintay Allah u naxariisto dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa gaar ahaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu sheegay inay uga tacsiyeynayaan madaxweynaha dalka Jabuuti iyo shacabka walaalaha ah ee xilligan u soo gurmaday dalka Soomaaliya dhibaatadaasi soo gaartay. waxaana dabcan dadaalka Jabuuti iyo dadaalka dawladda Soomaaliya ee walaalaha ay yihiin in marna xag jirka iyo kuwa dhibaatooyinka ku haya dadka si maaragtay mid ah oo gacan midaysan looga hortago oo marna aanay wax dhibaato ama wax dhaawaca ku keeni doonin falalka noocan oo kale ah ee argagixisanimada ee fulaynimada ah ee kooxahaasi ay ku dhaqaaqayaan. kulanka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay isugu yimaadaan toddobaad kasta